السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرضي سودو هذا كسودو هذا مركلي عشرة دين امتحانا هالكان أن كسوق بنجرنا دو إلى يرادو عشرة دي هوري وحن في ليا إن واحد بدل فايدة هذا وحن قصص عنا عشرة دين أيام ولي برتك جرنا السنة قد وناسن فضلنا دي أي تأمرك كورس هالكان أنا وصل بوقتي هيلو بيننا جنال كان سبسكرايب سارتيد سيدا كلنا صاحبada u share gareysid si muuqaalkan uu gaaro aad u maasantihiin aan casharkeena guda galno waxaan rabnaa in ay kanadan aan horta aan large ka dhigno ayaan rabnaa marka koowaad waxaan tagaynaa qaybtan waxaan leenahay right click kadibna waxaan leenahay large icons saas iyo ay kanadeeni ay u weynaadeen sidoo kale waxaan sameynaynaa waa aan yareyn karnaa banaanka waxaan dhigi karnaa right click kadibna waxaan dhigi karnaa view kadibna waxaan leenahay medium had sidaada ay ku soo celiyay waxaan ka dhigi karnaa inaan aad u yareeyno ayadana sidoo kale halkan banaanka imaw right click dheh kadibna waxaa dhahdaa view kadibna waxaa dhahdaa small icons hadda icon-adeena soo jeedin aad iyo aad ay u yareeyeen taas haddii aan midaasi kaga gubno aan ku soo celino marka kale sidoodii aan tagna view kadibna aan dhahno medium okay waxaan rabaa sidoo kale inaan la wadaago ila yiraahdo icon-adan hadda aan soo qaado inta aan soo dhigo oo saan aan dhaho iyo waxyaabahan desktop ka saaran saas ay soo qasmi karaan waxaan rabaa inaan arrange gareeyo oo aan meeshan ku habeeyo okay marka waxay jirto mar uu soo qaadmeenin oo automatic ka saaran yahay sidee hadda right click aan leeyahay kadib waxaan leeyahay view kadib waxaan leeyahay auto arrange haddaan jeega saaro oo hadda aan soo jiido igama yeelaayo in aan gacanteyda meesha rabaan ku geeyo okay laakiin hadda inta right click dhaho kadibna aan dhaho view kadibna aan dhaho auto arrange jeega ka soo qaad waan qaadi karaa oo meesha rabo ayaa markaas geyn karaa kan inta geyn karaa okay taas waa midaas waxaan rabaa inaan marka dhowr nooc ayaa waxaan loo arrange gareeyaa hadda waxa uu sareeyo si u jeedin userka waxa uu xogo PC-ga network-ga iyo sidoo kale recycle bin-ka marka waxaan rabaa inaan arrange gareeyo marka saddex qayb waa loo arrange gareeyaa waxaa loo arrange gareeyaa by name by tape iyo by date ama by size okay hadda arrange gareeno hadda wuxuu arrange gareeyay yahay by name marka inta aan tagno qaybta banaanka right click aan dhahno kadibna sort by aan dhahno kadibna by name aan dhahno hadda halkaan ila fiiri wax yar okay by name hadaan dhahno kan ayaa kan isu bedelay bas laakiin intaan waa sidoodii okay haddana aan halkaan tag right click aan dhaho kadibna aan dhaho sort by waxa u habaysaa by size hadda halkaan ila fiiri kuwaan dhan meelo kale ay tagi doonaan maadaama size kala weyn yahay okay waxaan dhihi karnaa size oo ujeeda hadda kuwaana ugu size weyn kuwaana hadda meesha la mariyay hadda marka maxaa u habeynay by name oo habeynay haddana waxaa u habeynay by size hadda halkaan tagana haddana right click aan dhahno kadibna sort by aan dhahno kadibna aan dhahno by tape aan dhahno u fiirso halkaan waxaa badan haddana isbedeli doono wixii folder isku dhinaci mari doonaan wixii icon maxaa la jiray qaybaan isku dhinaci mari doonaan wixii application isku dhinaci mari doonaan okay by tape aan dhahno okay by tape markaan dhahno waa kana hadda qaybtaan isku dhinaci mareen folderadii isku dhinaci mareen waxyaaba badan browseradii waa kuwana marka habkaasna ayadana waa loo sameeyaa sidoo ku soo celino by name halkaan tagna right click aan dhahno sort by aan dhahno kadibna aan dhahno by name okay haddii aan shay tiro sidee aan shaygii aan recycle bin-ka uga soo celin karaa okay waxaan sameynaynaa hadduu ilaa yiraahdo hadda folderkan tasti ku qoran tahay ayaan rabnaa inaan inta keeno kadibna bal aan koobiyeyno control C control V aan dhahno aan saas u koobiyeyno okay kii koobiya halkaan noo soo dhig kana rabnaa inaan tirno marka saa u tirno horta right click aan leenahay kadibna waxaan leenahay delete kadibna ma rabtaa in aad folderkan u dirtid recycle bin-ka micnaha weli computerkada ka heli kartaa waay laakiin haddii aan control haddaan shift la qabto del aan la qabto haddaan shift intaan doorto aan del aan la qabto wuxuu leeyahay ma rabtaa inaad si joogto ah permanent u dirtid marka haddaan shift aad del aan la qabatay ama delete aan la qabatay keyboardka shaygani recycle bin-ka lama geyn doone toos ayuu bixi doonaa laakiin hadda intaad right click iska dhahid ama delete aad dhahdid kadibna ama aad keyboardka aad delete aad ka isticmaashid waxaa waaye waa toos uma baxaayo wuxuu tegi doonaa qayb ka mid ah recycle bin-ka oo hadda qoraalka maxaa ku arkaysaa move to recycle bin kii horena marka aad la qabatid shift aad delete la qabatidna muxuu ku dhahaa permanent delete horta labadaas kala duwan hadda marka aan tirno kan delete aan dhahno keyboardkeena ka tirno kadibna yes aan dhahno testi aan ugu qoran aan soo baarno testi copy si aan soo celiyo waxaan sameynayaa recycle bin-ka tagayaa
kadibna inta waxaan ka raadinayaa test t aan ka raadinayaa okay waa kana test copy waa kana halkaan oo ku qori kartaa iyadana oo test hadda dhaadid oo ku soo qabanaya waa kana okay si uu soo celina asoo ku dooran right click dheh kadibna restore dheh amaba double click dheh kadibna restore dheh hadda anaga restore aan dhahno okay هذا ريستورا داني ماشي أتكسر عليسي أما أتكلم كسر ترتي أيوه كوجين دونا وكنا أوكي good هدي أنا رب إن فايل بدنا نسوي عليه أنا محاسمين كرا هنتجي يا سيد وكله رساكل بينكي كدمنا أتكون إجتر قيبتها جاكيسي أوكي قيبتها رساكل بين تولس أتجيسا ما كانت تكتبني وحاسمين يسا وحالات هاي restore all items أوكي item نقدر نسوي عليه كل متسوي عليه متكسر ماشي وكسر تري أيوه جين دونا haddii aan rabo inaan recycle binka aan nadiifiyana ayadana sidoo kale waxay tagaysaa qaybta recycle binka kadib waxay leedahay empty recycle bin hadda wuxuu leeyahay ma rabtaa inaad dhammaan itemadan aad tirtid yes aan leeyahay si aad ujeedid recycle binkayga empty waaye hadda wax kuma jiraan waa kasii tiray okay waxaa jirta kale oo aan rabo inaan kula socodsiiyo hadda markay aad dooratid oo aad delay dhahdid wuxuu ku weydiinayaa su'aal ah ma rabtaa inaad recycle binka aad u dirtid option kan meesha waa ka saari kartaa oo toos ay u diri karaa soo u tiraa waxaan tagayaa qaybtan recycle binka right click kadibna waxaan leeyahay properties kadibna waxaan tagi doonaa qaybtan ay ku qoran tahay jagga ayaan ka qaadi doonaa haddaan jagga qaado shay kastoon tiraayo wax su'aal ima weydiin doono waxaan leeyahay apply kadibna waxaan leeyahay okay hadda haddii aan kan doorto oo aan keyboardkayga ama inta right click intaan delay daho toos u diri doonaa wax su'aala ima weydiin doono okay hadda wuu iska baxay sababtoo ah ma khalad ku dhacday ma qofka ma toos u tiray oo waa saxsan yahay waxa su'aalay ma weydiino hadda recycle binka aan tago waa kana okay habkaas marka ayadana waa macnaha u saar kartaa jeega si haddii aad mistake lacala haddii aad mistake aad ku aragtid ama oo adoona u jeedin oo mistake gacanta kaaga dhacday delete-ka keyboardka oo toos u tiri lahaa waa inaad inta tagtid qaybtan recycle binka kadibna aad tahdid properties kadibna aad jeega soo saartid display waxaa soo bandhigtaa deleted confirmation dialogue boxka yarka oo digniinta ah ee wargelinta ah soo macnaha ama xaqiijinta jeega soo saar kadibna apply dheh kadibna okay dheh hadda daad ka gacanta iga dhacdo wuxuu idhahayaa ma rabtaa inaad tirtid haddii aan marka ay khalad ahayd ne waan dhahayaa haddii aan saxsanahayne yes aan dhahayaa waa intaas taasne aan taas kaga gudubno waxaa jirtoo kale hadda haddii shayga delete loo tiro folderadan iyo waxyaabahan documentiga iyo haddii aad intaad right click aad delete aad softwarada sidee loo tiraa softwarada waxaa loo tiraa waxaad tagaysaa waa kana softwareka waxaad tagaysaa qaybta control panelka kadibna waxaad sii furaysaa meesha waxaa ka dhiganaysaa waa furaysaa viewga category ka dhigaysaa kadibna qaybtan programs aad tagaysaa uninstallka kadibna softwareka aad rabtid ayaad dooranaysaa kadibna waxaad dhigaysaa uninstall okay hadda kana rabaa inaad tira aniga kadibna waxaad leeyahay uninstall kadibna ma rabtaa inaad tirto kuliya kadibna waxaad leedahay yes kadibna uninstall asay dhahaa weli waa sii wadayaa okay almost kan hadda wuu tiri close ka dheh okay waxaan filayaa inaa wax badan ka faa'iideen casharkeeni shanaad ee halka aan kusoo gudbinay tani intaan kulmi doono casharadeena xigo waxaa idinku dhaafayaa nabadgelyo